عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة يا شرفت قيمة يقدرين تملكون مظهر كسر هذا وركي عالم كأوضاعنا كلك دعوتان مبدئية مضح بران البرسن تي في استوديو سكوبات من هذا البيسا وركن وحاول ديارة أنا جوا عبد الفتاح محمد عبدي قدر وركن دكتور كرام حكم ذا golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta la hordhigay heshiiskii laba geesoodka ahaa ee dhexmaray dawladda Soomaaliland iyo shirkadda Dubai Rail. xildhibaan Jirde Siciid Maxamuud oo ka tirsan mudanayaasha aqalka guud ee Soomaaliland ayaa fariin u diray madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo. daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roolaa imikii haatana waxaa ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta la hordhigay heshiiskii laba geesoodka ahaa ee dhexmaray dawladda Soomaaliland iyo shirkadda Dubai Rail sida uu nagu soo waramayo wariye Cumar Shabash. xildhibaan nacnac oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta warbaahinta u waramayay ayaa cod dheer ku sheegay in ay ansixinayaan 80% maalgashiga lagu sameeyo dekedda caalamiga ee Berbera isagoo ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa hawshu meel wanaagsan maraysaa qofka Soomaaliyeedna oo reer Soomaaliland oo Soomaaliland ka naxyaaba wal yaani suuqaadkiida ayaaba waa la saxinayaa waxa lagu ansixin doonaa oo arki doona waxaan weligeed waxa aan lagu ansixin doonaa ayaa lagu ansixin doonaa afarta ka xanaaqay shirka qaarkood wadada ceelga markaan bilaabaynay waxba naga qaadmaya maray warbaahintu wax ka weydiisay rajada ay ka qabaan ansixintaasi ayaa waxa uu yiri waa been waxa dhaqaale ma jiraan anaka maxaafado waa dhaqaale ma hayno marka dhaqaale ma hawo wadanimo qofkii wadaniga uu saxay qofkana halkaas ka bixi laakiin dhaqaale iyo talabadaay ma jirto rajay tale ka qabtaa in cod aqlabiyada lagu meel maro weliga hadii ay noqon weydo more than 80% dib uga ansixin waayo hebel nacnac weliga hayo عمر علي تعالى تلفزيون كم واضح بنانه برسن تي في مقالة هرقيسة. xildhibaan Jirde Siciid Maxamuud oo ka tirsan mudanayaasha aqalka guud ee Soomaaliland ayaa fariin u diray madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo sida uu nagu soo waramayo Maxamed Daahir Xasan Dheere. xildhibaan Jirde Siciid Maxamuud oo ka tirsan xildhibaanada golaha guud ee Soomaaliland ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed ugu baaqay inuu hoos u eego beelaha gabooye ee dhammaan deegaanada jamhuuriyadda Soomaaliland siina saamiga ugu haboon ee golaha wakiilada ay xaq u leeyihiin oo aan maanta ku soo jeedinaya oo aan ku leeyahay beeshaas waa beesha gabooye beelaha gabooye in aad ogaato oo aad xasuusato oo aad maanta midida daabkeedii adiga gacanta ku haya saddexdii xisbi qaranna waxay kugu soo celiyeen saami qaybsiga inaad go'aan ka qaadato geesinimo leh sida haddaba lagaaga bartay rugcadaaba tahay waayo arag baa tahay madaxweynaha shacbigu doortay baa tahay waxaan kuu soo jeedinayaa oo aan si naxariis leh mar labaad iyo mar kaleba kuugu baaqayaa madaxweyne in aad xaqa ay leeyihiin ummaddaasi hoos u eegto oo aad xaqa ay leeyihiin inta aad kursiga fadhido adigana magac bay kuu tahay iyo sharaf ummadda beelaha gabooye ka kala kooban oo aad u fara badan in ay xaqa ay leeyihiin ay helaan oo waliba adiga gacantaada ay maanta wax ku helaan intaad adigu joogto iminka dhanka kale xildhibaan Jirde Siciid Maxamuud waxa uu hambaliyo u diray wasaarihii hore ee dalka Kenya Mr. Raila Odinga oo dhawaan sheegay in jamhuuriyadda Soomaaliland u qalanto inay aqoonsi caalami ah ka hesho beelweynta caalamka wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga oo aan leeyahay aad baa ugu mahadsan yahay kelmadda uu inoo yiri ee uu Soomaaliland hal ictiraafay yiri waan soo dhaweynaynaa waan taageersanahay waxaan leenahay waxa weeyaan cid kasta oo maaragtay wadamada jaarka kamida ama cid kasta oo maaragtay ninadanaysa waxaan u soo jeedinaa in sida maaragtay uu inoogu dhawaaqay ninkaasi uu kelmadda inoo yiri in iyaguna inoo yiraahdaan Maxamed Daahir Xasan Dheere Barsan TV magaalada Hargeysa. booliska federaalka dalka Itoobiya ayaa maanta kaleeriyay mudaharaadayaal isugu soo baxay caasimadda dalkaasi ee Addis Ababa sida warkaasi noogu soo teginayo Xamse Diinaari. booliska magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ayaa kaleeriyay dad mudaharaadayay waxayna xireen tiro ka mid ah dadkaasi waxay ku soo baxeen fagaarayaasha ugu weyn magaaladaasi tiro dad ah ayaa iyagana dhaawacmay kadib markii ay boolisku garaaceen wadooyinka waaweyn ee soo gala fagaarayaasha waxaa jidgooyin dhigtay booliska federaalka oo aad hubaysan wariyaasha ku sugan ayaa sheegaya in ay arkeen dhalinyaro la xirxiray oo qasab lagu saarayo gawaarida booliska waxaa jira warar kale oo sheegaya in mudaharaadada ay ka socdaan
suudaan magaalooyinka kale ee gobolka Oromada deegaankaasi oo kan u ballaaran dalka Itoobiya. Mudaharaadkan waxaa ku baaqay dadka u ololeeya qoomiyadda Itoobiya ugu ballaaran ee Oromada waxay sheegeen in dawladdu dishay boqolaal dadkooda ah ayna xirtay kumanaan kale oo tan iyo markii ay mudaharaadyadu bilowdeen bishii 11 sanadkii hore. dowladda Suudaan ayaa aqbashay in dalkeeda la geeyo ciidamo shisheeye si ay gacan uga geystaan sidii loo badbaadin lahaa heshiiskii nabadeed ee dhawaan gaaray. sida uu warkan lagu hayo Saddam Hussein. dowladda Suudaan ayaa aqbashay in dalkeeda la geeyo ciidamada gobolka ka socda oo gacan ka geysta sidii lagu badbaadin lahaa heshiiska nabadeed ee colaadda dalkaasi laga gaaray. madaxda sarsare ee dalalka IGAD oo shalay arrinta Suudaan uga sharay caasimadda Addis Ababa ayaa ku heshiiyay in haddii Riek Machar uu dib ugu laabto caasimadda Juba uu dib ula wareegi doono xilka madaxweyne ku-xigeenka koowaad kaasi oo dhawaan loo magacaabay Taban Deg. balse madaxda IGAD ayaa shaacin xilliga uu howlgelaya ciidanka ay u diyaariyaan Suudaan tiradiisa iyo dalalka uu ka imaanayo. xukuumadda Juba ayaa horey u diiday ciidamo dheeraad ah oo dalkaasi la geeyo balse cadaadis kaga yimid beesha caalamka ayaa la rumaysan yahay inay ku aqbaleen arrintaasi. dagaal dhawaan ciidamada madaxweyne Salva Kiir iyo xooga taabaxsan Riek Machar ku dhexmaray caasimadda Juba ayaa dhalilay walaaca inuu dib u qarxo dagaalkii suukeeyay ee dalkaasi ka bilowday sanadii 2013. waa Saddam Hussein telefishinka caalamiga Barsan TV magaalada Hargeysa. intaasi waxaa laga eeg warkii caalamka oo idin soo tibinaya aniga waa Cabdisaax Maxamed Cabdideeg tan iyo kulanti dambe intaan ku kulmi doono warka xiga waxaad kaga tagayaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.